بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha Oktoobar 2025 waxa magaalada Nairobi dalka Kenya shir isugu yimid madaxweynayaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee Jubaland iyo Puntland mudane Ahmed Maxamed Islaam iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madasha samata bixinta Soomaaliya oo ay metelayaan ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore mudane Saacid Shirdoon iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur shirka ayaa waxa looga hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga iyadoo si gooni diiradda loogu saaray sidii Soomaaliya ku gaari lahayd mustaqbal wanaagsan oo u horseeda xasilooni siyaasadeed amni sugan iyo horumar dhaqaale shirku waxa uu go'aamiyay in la dhiso golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku mideysan yihiin madasha samata bixinta Soomaaliya iyo dawladaha Jubaland iyo Puntland labo in si dhaqso ah shir la isugu yimaado gudaha Soomaaliya si looga arinsado go'aan looga gaaro xaaladda kala guurka ee siyaasadda dalka saddex in shirka soo socda lagu dhameystiro dhismaha golaha mustaqbalka Soomaaliya afar shirku waxa uu ugu baaqayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta iyo ka shaqaynta midnimadooda xasiloonidooda dalkooda kana hortagaan cid kasta oo dhaawacaysa wada jirkooda shan shirku waxa uu uga mahadcelinayaa dawladda Kenya dadaalka ay ugu jirto sidii Soomaaliya ay u heli lahayd xasilooni iyo horumar aad iyo aad baa mahadsantiin